إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة، الله سبحانه وتعالى ayaan weydiisanaynaa inuu nawaafajiyo wixii samaha iyo khayrku ku jiro. kelimadan oo ku saabsan sidii horeyba loo sheegay qoyska muslimka ah, waxaan isleeyahay malaha mawduucan daaweyntiisa waxaa kaaga ficnan lahaa culimada idinla nool ama idinla noolaatay hadda ka hor. sababtuna waxa weeye waxaa ka mida qawaacidda alxukmu cala shayi farcun can tasawurihi baa la yidhaahdaa. shayga markaad xukumayso waa inaad sawir buuxa ka haysato wey, waa inaad si fiican u fahamsanta. haddii kale waxaa dhacaysa haddii aadan arrinta si fiican u fahamsanayn, dhinacyaheeda kala gedisanna aadan si fiican uga warhaynin, waxaa imaan kartaa ama dhici karta inaad xukm khalada saarto ama sidii daawadeedu ay ku habboonayd si ka gedisan inaad u daaweyso. waxaa la yidhaahdaa tashkhiiska iyo cudurka marka hore in la qiimeeyo oo cudurka la ogaado ayaa ka horeysa daaweyntiisa. mujtamacaadkiinan markaa muslimkaa ee waddamada reer galbeedka yimid ee degay, xaasaska ku yeeshay, carruuraha ku leh, waxaa laga yaabaa cudurrada khaaska ee bulshooyinka haysta qoysaska ku nool waddamada reer galbeedka inay aada uga gedisan yihiin mashaakisha iyo cudurrada haysta qoysaska muslimka ee ku nool ama waddamada islaamka ama waddamadan ka nimid. siday dooniba ha ahaatee, mawduuca qoysku runtii waa mawduuc muhim ah. wixii ilaahay subxaana wa tacaala iga waafajiyo un baana insha allahu tacaala ka odhan doonaa. waxaan allah weydiisanayaa subxaana wa tacaala inuu gafka iyo khaladka naga ilaaliyo, idinkana waktiga aad wax dhegaysanaysaan inuu ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka idin geliyo. marka labaadna waxa aad maqlaysaan dad wax ku qaato oo ku intifaaca inuu ilahay idinka dhigo subxana wa tacaala. walaalayaal, saan horeyba u sheegay, qoyska arrintiisu wakti hore iyo haddaba
waa arrin mudan runtii in badan in la isdul taago, waa arrin mudan in badan in laga hadlo, waa arrin mudan in badan in laga sheekeeyo oo xal loo raadiyo oo cudurradeeda la daaweeyo oo si rasmiya runtii waxa weeyaan wax looga qabto. sababtuna waxa weeye qoysku wuxuu asaas u yahay ama gundhig u yahay bulshada iyo mujtamacuna waxay gundhig u tahay dawladda. silsilad ishaysato wey marka. haddii qoysasku ay ficnaadaan, bulshadaas qoysas bay ka koobantah. waa mujtamac xubnihiisa ay fiican yihiin, ay fayow yihiin oo nadiif yihiin. haddiise ay dhacdo inay ama qoyskii u burburo ama maahe macnaha waxa weeyaan maaragtay xubnihii kaleete ee qoyska ka hooseeya bulshadu nadaafadii la rabay iyo qaabkii la rabay laga waayo, runtii way adag tahay mujtamacu inuu noqdo mujtamac sidii la rabay iyo dawrkii iyo kaalintii laga rabay qaata. way adag. waxaan jeclahay marka inaan mawduuca dhowr qaybood u qaybiyo. qayb inaan darsigan maanta iyo muxaadaradan maanta aan ku qaadano insha allahu tacaala. qaybaha dambena jaanis dambe biidn illahi tabaaraka watacaala inaan la sugno ayaan jeclahay haddii aan la idmo. waxaan ku bilaabayaa hadalkayga. allah baa mahad iskale subxaana wa tacaala. marka koobaad walaalayaal, rabbigeen wuxuu ku mahadsan yahay marka koobaad kamaal iyo dhammaystirnaan iyo wax laysku ammaano isagaa iskale. wixii isaga ka soo hadhay waa dhiman yahay, ceeb buu leeyahay. isaga ayaa wuxuu yahay midka dhammaystiran oo meel la ayna dhimanaan ka soo gelin. saa ilaahay mahad buu ku leeyahay, waa ku ammaanaya subxaana wa tacaala. ta labaad ee rabbi ku ammaanaya waxay tahay wax kasta oo laysku ammaano oo aynu haysanno isaga xaggiisay ka yimaadeen. wamaa bikum min nicmatin famin allah uma idaa massakum adurru failayhi taj'aruun. wax kastood haysataan oo nicmo ah xagga ilaahay bay ka timid. markay dhibaata idin qabatana isagaad u dhawaaqataan oo xaggiisaad u carartaan. rabbigeen subxaana wa tacaala marka waxaan nahay oo dhan isagaa inaga dhigay. isagaa rabbi subxaana wa tacaala ina abuuray. abuuristeennii ninna kalamuusan tashanin, adigana lagaama talagelinin, waalidkaana lagalama tashanin, cid ilaahay ku kaalmaysayna ma jirto subxaana wa tacaala. allana subxaana wa tacaala xaq iyo waajib ugumaadan lahayn inuu ku abuuro. rabbi isagaa ku abuuray subxana wa tacaala. adoon jirin buu adduunyadan ku keenay. markuu ina keenay rabbi subxaana wa tacaala xubnahan qiimaha badan iyo qaabkan quruxda badan inoo abuuray, ayuu haddana alla subxaana wa tacaala wuxuu inoo diyaariyey noloshan aynu ku nool nahay. waxa nolosheennu u baahan tahay oo dhan baa laynoo diyaariyey. waxaa laynoo diyaariyey hoygii baa layna siiyey, waxaa layna siiyey cuntadii baa layna siiyey, waxaa layna siiyey cabitaankii baa layna siiyey, waxaa layna siiyey. intaa markii layna siiyey haddana shahwa ina qabatay oo shahwadii meeshaan ku gudan lahayn iyo nidaamkaan ku gudan lahayn baa laynoo habeeyey. intaasoo dhan waxaa ka weyn allah subxaana wa tacaala wuxuu inoo soo dejiyey nidaamkii noloshani ay ku hagaagi lahayd. rasuul buu rabbi inoo soo diray, malag buu xaggiisa ka soo diray rabbi subxaana wa tacaala. nebi maxamed buu malagii u yimid, fariintii ilaahay buu soo gaadhsiiyey. innagana nebi maxamed baa inoo keenay fariintii rabbi subxaana wa tacaala. waxaa laynoo keenay nolosheenna dastuurkii aan ku dhaqmi lahayn. hadday qoys tahay, hadday bulsho tahay, hadday qaybaha dhaqaalaha tahay, hadday dawlad tahay, haddii ay mujtamac tahay, haddii ay nooc akhlaaq tahay, hadday cibaadaad iyo wax ilaahay loogu dhowaado tahay, nolosheenna nooc kastoo ka mid a nidaamkii ay ku socon lahayd buu rabbi inoo soo dejiyey subxana wa tacala. waa kitaabka qur-aanka iyo dhaxalkii nebigeenna, sunnadii nebigeenna salawatu rabbi wasalaamu calayh. labadaasaa laynooga tegay. waa nicmada ugu weyn ee rabbi bixiyey subxaana wa tacaala. sidaas daraaddeed
ayada marka la fiiriyo nicmada iyada ah nicmada waxa kale oo dhan waxay noqonayaan wax yar bay noqonayaan ilmaha lagu siiyey waa wax yar qoysku waa wax yar xoolaha lagu siiyey waa wax yar caafimaadku waa wax yar caqligu waa wax yar marka la garab dhigo diinta ilaahay ku siiyey subxaana watacaala iyo iimaanka saas daraaddeed baa nabigeena wuxuu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh allah subxaana watacaala wuxuu siiyaa adduunyada mid uu jecel yahay iyo ruuxuusan jeclaynba laakiin iimaanka alla ma siiyo ruuxuu jecel yahay cid aan ahayn haddii adduunyadu ay qiimo leedahay alla subxaana watacaala dadku necab yahay wuu ka qadin lahaa gaalada muuse wax ka siiyey xadiidka nabigeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh ka sugan baa rasuulkeenu wuxuu leeyahay law kaanat iddunya tazinu cinda allahi janaxa bacuuda maa saqa minha kaafiran sharbata maa hadday adduunyadu ilaahay agtii u dhiganto kaneecada garabkeeda wax kaneecada garabkeeda leeg waa shay aad u liito oon qiimo gal ahayn intaa hadday adduunyadu u dhiganto alla agtii gaalada muusan kababiya ka siiya laakiin gaalada waxaa loo siiyey ilaahay agtiisana qiimo ku lahayn saas daraaddeed ba rabbigeena wuxuu uhi subxaana watacaala kullan numiddu haaulaa wa haaulaa'i min cafaa'i rabbik wamaa kaana cafaa'u rabbika maxduura kuwan gaaladaana waanu siin kuwan muslimkaa mu'miniintaana waanu siin labadooda midna looma diidin bu rabbi yihi subxana watacaala oo allow gaalada waad necebtahay oo mar rabaadaan nagu yidhi maad u diidid adduunyadan qiimo agtiisa ilahay ka lahayn subxana watacaala laakiin shayga qiimaha leh ma taqaana shayga qiimaha leh ruux qiimo leh baa la siiyaa shayga ilaahay agtii qiimo galka ka ah waa iimaanka iyo diinta iyo akhlaaqda saas daraaddeed iimaan iyo diin iyo akhlaaq ilaahay wuxuu siiyaa agtiisa mid qiimo kale agtiisa mid qiimo kale oo magac ku leh oo mansile iyo darajo ku leh iyo ilaahay diin siiya subxana watacaala raallina ka yahay laakiin adduunyada wuxuu siiyaa mid ardaal oo liita oo ilaahay jiritaankiisaba diidan iyo mid mu'min oo ilaahay rumaysan labadaba alla waa siiya subxana watacaala allah marka walaalayaal nicmada ugu weyn ee inaan ku mahadinno ay waajib tahay qalbigeennana ay aad ugu weynaato waa nicmada diinta iyo iimaanka wey waxaan kaloo dhan waa lagula wadaagaa waxaan kaloo dhan waa lagula qabaa haddaad wax cunto ood cunto haysato xooluhuba waa cunaan haddaad hoy haysato xooluhuba hoy waa haystaan haddaad wax cabto ood cabitaanka ku faraxsan tahay xooluhuba waa cabbaan haddii aad xaas iyo shahwo meel lagu guto aad macnaha waxay ku faraxsan tahay xooluhuba shahwada waa gutaan carruur aad leedahay haddaad ku faraxsan tahay yani waxa way xooluhuba waa dhalaan intaa wax lagu farxo weyn ma laakiin maxaa lagu farxaa waxaa lagu farxaa allah subxaana watacaala diin iyo iimaan inuu ku siiyo akhlaaq wanaagsan inuu alla ku siiyo subxana watacaala midaasaad kaga soocan tahay kagana qiimo badan tahay khalqiga intiisa kale kaga qiimo badan tahay waana midda ilaahay subxaana watacaala uu siiyey khalqi uu jecel yaho aad u yar tiro yar buu ilahay siiyey subxana watacala sida nabigeena ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh maalinta qiyaamada marka la tago aadam buu ilahay u yeedhaya subxana watacaala aabaheen markaasaa rabbi wuxuu ku leeyay subxana watacaala aadamow naarta carruurtaada aad dhashay intii naarta loogu talagalay soo saar baa la odhanaya markaasu wuxuu leeya yaa rabbi min kam rabbigow inteen soo saaraa boqolkiiba intee markaasaa rabbi wuxuu ku leeyahy subxaana watacaala min kulli alfin 999 kunkiiba waxaad ka soo bixisaa 999 soo saar baa la odhanaya waa maalinkaasuu yidhi nebigu sal alay waslam maalinka ay dhallinyaradu ceraysanayso oo midii uurka lahayd ilmihii soo tuurayso oo tii nuujinaysay ilmaheeday ahelmaamayso oo dadkii aad arkaysa iyagoo ood moodaysa inay sarqaansan yihiin ma sarqaansanee cadaabka ilaahay baa wey khamro mayna cabbin darooga mayna isticmaalin ma sarqaansana laakiin waxa hortooda ka muuqday la waalan yahay oo la wareersan yahay maalinkaa marka yacni allah subxaana watacaala wuxuu qadaray kunkiiba hal ruux inuu iimaanka siiyo 999 in iimaanka laga qadiyo cadaab ilahay ugu talagalay subxana watacaala shayga marka walaalayaal qiimaha leh waa midkaa oo ruuxii ilaahay siiyeyna ay laazim tahay inuu garto oo qalbigaaga ay ku weynaato haddayna taasi dhicin oo aan iimaankiiyo islaamnimada ilaahay ina siiyey intaa inugu wareegsanee khalqigana uu ka qadiyey
qiimaha ay leedahay haddaad garan weydaan ilaahay subxaana wa tacaala waa idinka qaadanaya. wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum baa la yidhi subxana wa tacala. haddaad jeedsataan ood khayr iyo wanaagka nacdaan ood ka jeedsataan kuwa idinka fiican buu ilahay idinku bedelanayaa. kuwa markuu idinku bedeshana idinkoo kale noqon maayaan. yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinihi fasawfa ya'ti allahu biqawmin yuxibuhum wayuxibuunah. ruuxii diinta ilaahay nace oo ka tagow oy qiimo la yeelan weydow waxaad ogaataa waxba lagugu fali maayo. alla wuxuu keensani kuwa jecel isaguna uu jecel yahay, diintiisa fuliyo u shaqeeya, raalli ku ah oo ku qanacsan, oo allah subxaana wa tacaala miyuu kuu baahan yahay mise adaa u baahan? ma adaa u baahan allah subxana wa tacala mise wuu kuu baahan yahay? diinta ilaahay ma adaa u baahan mise waxa way iyadaa kuu baahan? allah khalqigiisa uma baahna subxaana wa tacala, waxbana inagu fali maayo. yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid. war idinkaa allah u baahan ee alla waa idinka maarmaa subxaanahu wa tacala. xadiidka nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu aleyh waa ka nabigeenna odhanayo kulligiin haddaad isu tagtaan oo dhammaantiin aad yeelataan ka idin kulliisa qalbigiisoo kale wada yeelataan, mulkigayga iyo boqortooyadayda waxba yeeli maysaan. ka idinku fiican haddaad qalbigiisoo kale wada yeelataan ood wada ficnaataanna mulkigayga waxba ku kordhin maysaan, idinka iyo shaqadiinna iyo camalkiinna. allah waxba uma dhimi karno, samadani waxba uma dhimi karno, dhulkani wax inoo noqon maayo, qoraxdu wax inoo noqon mayso, maamulkan ilaahay waxba kama bedeli karno. laakiin adigaa waxaa tahay miskiinka sabarta daran, caqliga aan lahayn, garashadiisu kooban tahay, aragtidiisu kooban tahay, sabartiisu kooban tahay, ee allah u baahan subxaana wa tacaala. allah innagaa marka u baahan walaalayaal sharcigiisa. haddaan isaga aynan qabsaninna shaki ma laha inayna adduunna khasaarayno, aakharana inaynu meel xun ku soconno. oo labadii nololoodba inaynu hallaabayno shaki ma laha. walaalayaal marka mabda'an qiimaha badana ilahay inoo soo dejiyey subxaana wa tacaala waa mabda aan waxba ka tegin, waa mabda wax walba inoo kala dhigdhigay, waa dastuur ilaahay ka soo degay oo bini aadam uusan feegaarkii ahayn, wax bini aadam ku feegaaray oo uu macnaha waxa weye sameeyey ma. laakiin waxaa soo dejiyey allihii subxaana wa tacaala samaawaadkiiyo dhulka abuuray. wuxuu kuu sameeyey qoyskaaga iyo nidaamkii aad ku dhisi lahayd iyo qaabkaad u maamuli lahayd. nidaam buu ilahay kuu dejiyey subxana wa tacala, meel la aadan ka helin. bulshada aad ku dhex nooshahay, xidhiirka idinka dhaxaynaya, xuquuqda idinka dhaxaysa, nidaamkaad ku socon lahaydeen allah baa soo dejiyey subxaana wa tacaala, meel kale ka heli maysa. wax la mida iyadoo kale inaad meel kale ka hesho rajo lagama qabo. dawladdii iyo nidaamkeedii iyo dastuurkeedii iyo maxkamadaheedii iyo calaaqaadkeedii dibadda iyo kulli yani waxa weeye nidaam dhammaystiran oo isagoo kale aydan meel kale ka helin buu ilaahay soo dejiyey subxana wa tacaala. uma baahana inaynu macnaha inagu maskaxdeenna ka shaqaysiino, inaynu dejinno uma baahana. keliya wuxuu u baahanya waa bisil yahay qaata oo cuna, waa diyaare qaata oo ku dhaqma. wax badan inoogama baahna, laakiin waxay arrintu ka go'daa inaad ku qanacsantood rumaysan tahay, diyaarna u tahay inaad ku dhaqanto. waxa mashaakil ina haysto dhan insha allahu tacala waa xalisnay. qoysku marka walaalayaal mabda'aad asaasiga ah in soo sheegnay ee ilaahay inoo soo dejiyey, mabda'a isaga ah in lagu saleeyo ayaa asaaskiisa. halkaas ayay qodobka koobaad wax ka bilaabanayaan saayida. lianna waxa weeye qoysku arrin la dhayalsan kara ma aha, waa asaas, noloshu asaas badan iyo asaas u yahay. inuu asaas yahay waxaad ku garan kartaa guriga marka la dhisayo waxaa jira dhagax la yidhahdaa dhagaxa asaaska oo gurigu ka bilowda. bulkeetiga ugu horeeya guriga la dhigo ee ku taagan yahay dhagaxa asaasiga ah bulshada waxaa u ah qoyska u ah. inay arrintu saas tahayna waxaad ku garan kartaa allah subxaana wa tacaala markuu aadam abuuray, nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu allah abuuray oo carrada iyo dhulka ka abuuray, tilaabadii xigtay waxay ahayd wehelkiisii nolosha kala qayb qaadan lahayd inuu ilaahay u abuuray subxana wa tacaala. qoftii dumarka ahayd ee nolosha la wadaagi lahayd baa isaga laga abuuray laftiisa. xawaa
sida rabbi subxaanahu watacaala qur-aanka ku sheegay yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wakhalaqa minha zawjaha wabasa minhuma rijaalan kaiira wanisaa allah iska jira baa la yidhi subxana watacala cadaabkiisa iska jira ka baqa allahaasi waa midka idin abuuray oo naf keliya idinka abuuray naftaa uu idinka abuuray xaggeedana ka abuuray xaaskiisii ka abuuray waa aadam nafta laynaga abuuray xaaska laga abuurayna waa xaaskiisii xawaa aadam iyo xaawo markii la abuuray waxaa samaysmay qoyskii ugu horreeyey oo lafdhabar u noqday bulsho la yidhaahdo bini aadam xaawaa la abuuray intaan aadam wax kalaba loo samaynin mar alla markii jannada intuu ka yimid dhulka uu yimidba intaan macnaha dhulkaba la keeninba xaawo ayuu alla ku lamaaniyey subxana watacala qoys bay noqdeen halkaasaa marka waxaa ka bilowday tarankii bini aadamka wabasa minhuma rijaalan kaiira wanisaa dumar fara badan iyo rag fara badan baa marka ka farcamay aadam iyo xawaa arrintu marka qoysku ahamiyadda uu leeyahay waxaad ka garani bini aadan markuu ilaahay asaaskiisii asalkiisa abuuray waxaa lagu xijiyey inuu qoys noqday qoyskaasaa marka carruurtii ka dhalatay bini aadamka intiisa kale ka tarmeen dumarkii ka yimaadeen raggii ka yimaadeen dariiqada keliyatee marka bini aadamku ku tarmi karo ayaa waxaa laga dhigay rag iyo dumar inay isu yimaadaan ilahay baa qadaray subxana watacala waa qorshe rabbi subxana watacala laakiin mas'aladu waxay kutusaysaa ahmiyadda uu qoysku leeyahay unuga koobaad inuu yahay unuga koobaad hadduu hallaabo oo geedku uu jiridda ka xumaado jiridda iyo salka hadduu ka xumaado iyo inuu caleentiya laamaha ka xumaado way kala tahay geed jiridda ka xumaaday ama xididada ka xumaaday waa u dhammaatay waa dhacaya macnaheedu waxa weeyaan haddii qoysku xumaado bulshadaasi inay jirtaay way adag haddii qoysku uu kala furfurto bulshadii waa kala daabsanta haddii qoysku uu isku dhaco cudurro galo macnaha nadaafadii iyo qiimihii uu waayo iyo xishmadii bulshada dhan xishmadda waa waaysa hadduu qoysku barakaco bulshadu waa barakacsan hadduu qoysku nabadgelyo waayo bulshadii nabadgelye la'aan hadduu qoysku diin la'aan ku dhacdo bulshadii waa diin la'aan asaaska loo noqonayo marka saldhigga u ah bulsho haddaad maqashiyo mujtamac waxa weeyaan waa qoysku hadduu dhisan yahay bulshadaasi waa dhisanta talabaadii waxa weeye oo ahmiyadda qoyska kutusaysaa mustaqbalka dadka lagu talagashan yahay inay nolosha hogaamiyaan oo carruurta ah madrasada ugu horraysa iyo meesha ugu horraysay ka afbartaan ay ka soo baxaan ay waxbarashadooda iyo thaqaafadooda iyo aragtida iyo ka qaataan waa qoyska wey waa aabbihi hooyo iyo carruurta ka waaweyn mustaqbalka ragga hogaaminaya meeshay ka soo baxaan intaynan iskuul la geynin jaamacad la geynin dad kale aynan afkooda dhegaysanin waxa ay dhegaysanayaan oo wax ka qaadanayaan oo wax ka arkayaan oo wax ka maqlayaan waa qoyska iyo bulshadiisa kooban afraadda bulshada qoyska ee kooban ayay carruurtu wax ka qaadanayaan meeshaa wixii yaalla hadduu xun yahayna carruur xunxun baa bulshada usoo baxay midho xun baa usoo go'aya bulshada usoo go'ay haddii meeshaa waxa yaalla uu hagaagsan yahayna carruur wanaagsan iyo midho wanaagsan baa bulshada usoo go'aya mustaqbalka bulshadaasina waa hagaagayaayo dee rag fiican baa usoo go'aya midho fiican baa usoo baxayo berrita ay lagu tashan karay arrintaa rabbi rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayaa tilmaamay nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam maa min mawluudin ila yuuladu cala alfitrati buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalamu caleyh faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajjisaanihi kama tuntaju lbahimatu bahimatan jamcaa hal tajiduna fiiha min jadcaa buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalamu caleyh mid kasta ilmo kastoo la dhalo marka uu dhalanayo waxaa lagu dhalaa caqiida toosan baa lagu dhalaa islaamnimuu ku dhashaa isagoo hagaagsanoo ilaahay qalbigiisu uu ilaahay yaqaano ayuu ilmuhu dhashaa markuu dhasho oo bulshada uu qoyska dhex yimaado kadib labada dhashay ee markaa gacanta ku haya ee uu ku dhex korayo ayaa waxa ay haysteen ayay markaa kadib siiyaan hadday yahuud ahaayeen yahuudi bay ka dhigaan hadday nasaaro ahaayeen nasraani bay ka dhigaan hadday majuus ahaayeen dabka caabuda majuus bay ka dhigaan ilmihii majuusi ka dhigaan markii hore muxuu dhashay
isagoo hagaagsan buu dhashay laakiin yaa sumaday yaa mabda'an xun ka dhaadhiciyey yaa sidan u dhigay waalidkaa sidan u dhigay nebigu tusaaluu ka bixiyey salawatu rabbi waslamu aleyh wuxuu yidhi ilmaha xoolaha neefka xoolaha markuu dhasho wuxuu dhalanayaa isagoo dhammaystiran oon dheg ka jeexnayn dheg aan go'nayn meella ka sumadnayn isagoo dhammaystiran buu dhalanaya hadhow markuu dhasho oo ilmihii neefka ahaa uu koro ayaa marka waxaad bilaabanaysa in dhegta laga gooyo dhegta la jeexo meel laga sumado yacni waxa weeye ninkii lahaa ayaa sumadduu rabo ku samaysanaya markiisi hore laakiin wuxuu dhashay isagoon sumad lahayn isagoon meel la ka jeexnayn isagoon meel la go'nayn ilmaha yarka ah ee guriga ku dhex dhalanaya ee qoyska dhexdeeda imaanayahay saasoo kale ku imaanaya isagoo dhammaystiran caqiido toosan islaam ah hagaagsan ayuu imaanaya laakiin yaa sumadaya hooyadii aabbihii baa sumadaya hadday yahuud yihiin sumaddii yahuudday siinaya hadday majuus yihiin sumaddii majuustay siinaya haddii ay yihiin macnaha waxa weya maaragtay nasaare yihiin yani sumaddii nasaaraday siinayaan yacni waalidka ayaa wuxuu yahay meesha koobaad ee ilmuhu wax ka qaato haddii waalidku akhlaaq uusan lahayn ilmaha guriga ka soo baxaya akhlaaq ma leh hadduusan waalidku diin lahayn ilmo aan diin lahayn baa guriga ka yimaada haddii ayna waalidku yacni waxa weeyaan aynan daroogada iyo waxyaalaha maandooriyaha iyo waxyaalaha isticmaalaan ilmo waxaa ku koray oo ay la quman tahay baa meesha ka yimaada haddii waalidku hagaagsan yahay oo dad quman oo diin lahoo ilaahay ku xidhan ay yihiin ilmo diinla baa guriga ka soo baxa wahaakadaa meesha koobaad iskuulka koobaad madrasada koobaad ee ilmuhu wax ka qaato waa qoyska muhiimad wey marka sideedabana bulsho haddii la doonayo in wax laga qabtaayo oo mustaqbalkeeda wax laga qabtaayo meesha wax laga dhisaayo waa carruurta maalan tusaalan idin siinayo reer galbeedku maalan markay kusoo duuleen caalamulislaamiga ay kusoo duuleen oy doonayeen qazulfikri maskaxda inay kaga duulaan duulaankii iyo dagaalkii ciidamada iyo waxyaalahan inta laga baxay laysku daya caalamulislaami fikrad ahaan iyo manhaj ahaan in loola dagaalamo dagaalku wuxuu ka bilowday dadkii da'yarta ahaa iyo carruurtii iyo manaahijtii waxbarashada in laysla helo meeshaasi wax ka bilowday markii intaa laysla helay carruur waxaa soo baxday aan calaaqa la lahayn taariikhdii dheereed ee islaamka aan calaaqa la lahayn guushii muslimiinta aan calaaqa la lahayn bulshadii muslimka aan calaaqa la lahayn diintii islaamka wixii qiimo lahaa oo dhan agtooda ayna qiimo ka lahayn limaada lianna waxa weeyaan waxaa lagu guulaystay intay da'yaraayeen in la dhisto oo la samaysto oo sidii la rabo loo sameeyo meeshaasina arrintaasina waxay kutusaysaa ahmiyadda uu leeyahay qoysku ayay kutusaysaa bini aadamka tarankiisa ayaa ku xidhan qoyska haddii uusan qoys jirin bini aadamka tarankiisu ma jirayo saas daraaddeed baa shareecada islaamka iyo diinta islaamku waxay walaalayaal inagula talisay oo aad ugu dadaashay sidii loo dhisi lahaa qoyska loo dhisi lahaa qoyska dhismihiisa lagu dadaala leh limaada lianna jiritaankii bini aadamkaa ku xidhan haddaan qoys jirin bini aadamkii ma jirayo haddii la yidhaahdo sida xoolaha oo kaleeto meeshii layska soo gaadhaba labadii isa soo gaadhaba waydinkaa oo qoys dhismaya ma jiro waajibaad ma jiro xuquuq ma jirto laba laysku og yahay oo bulshada ku yani waxa way bulshadu isku og tahay oo hebel iyo heble la yidhaahdo nin iyo xaas isu ah ma jiraan nin walowba meeshaad soo gaadha shahwadaada ku gudo hadday noqoto macnaheedu waxa weeye waxaa lumaya carruurta iyo xuquuqdii iltizaamaadkii korintii jiritaankii bini aadamka waxaana lumay hadday noqoto sida xoolaha intaad suurto un oo kulaylka ku hayo un isdhaafiso un iska dhaqaaq bini aadamkan aad arkaysaan ma jirin adiga waxaad ku soo kortay aabba kugu xisaabtamaya iyo hooye kaa naxaysa iyo dad mustaqbalan kugu xisaabtamayo oo beerkoodii iyo jidhkoodii qayb ka mida aad tahay ayagaa ku halgamaya kuu rafaadaya hooyadii baa kugu rafaadaysa aabbihii baa kuu shaqaynaya waxay taasi ku timid waa guurkan iyo qoyskan ilaahay subxaana wa tacala isku lamaaniyo taa haddaynan jirin bini aadam ma jiray bini aadamkaad arkaysaan qoyskaas
iyo unuga qoyska ayuu ku jiraay bini aadamka tarankiisa iyo si socoshadiisu ma ay soconayso saas daraadeed baa rabbi subxaana watacaala wuxuu ina amray in qoyska la dhiso oo rabbi subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi waankixu alayaama minkum waalsaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum in yakunuu fuqara'a yugnihim allahu min fadlih u guuriye buu rabbi yihi subxaana watacaala bulshadiiyey kuwa aan hoyga lahayn ragga aan lahayn xaasaska lahayn iyo dumarka aan ragga lahayn u guuriye buu rabbi yihi subxana watacaala hadday fuqara yihiin oo waxba aynan haysanin ilaahay baa deeq waa ka nabigeena odhanaya salawatu rabbi wasalaamu calayh saddex ilaahay baa subxaana watacaala xaq iskaga dhigay inuu u kaalmaynayo saddexdaas waa ninka guurdoonka oo guursanaya isagoo ujeeddadiisu ay tahay inuu ku dhowrsado oo zine iskaga ilaaliyo ilaahay baa xaq iskaga dhigay inuu caawinayo o u kaalmaynayo ka labaad waa ninka addoonka oo sayidkiisa la heshiiyey oo mukaasabka la yidhaahdo oo doonayo xoolihii uu ku xoroobi lahaa oo sayidkiisa siin lahaa ilaahay baa u kaalmaynaya buu nabi uri salawatu rabbi wasalaamu calayh midka saddexaad waa ninka duulaanka oo jidka ilaahay subxana watacaala ku maqan wey saddexdaaba ilahay baa damaano qaaday subxana watacala oo xaq iskaga dhigay inuu kaalmaynayo marka in yakunuu fuqara'a yugnihim allahu min fadlihi hadday fuqara yihiin oo waxba aynan haysanin allah subxaana watacaala baa deeqaya isagaa wax siinaya idinku u guuriya bu rabbi ilahi subxana watacala u guuriya rasuulkeennana salawaatu rabbi wasalaamu calayh raggii saxaabada ahaa ee ka codsaday inay xiniyaha isgooyaan xilli xoolana ayna haysanin xoolo ay ku guursadaanna ma haystaan guurna waa u baahan yihiin oo shahwadii waa haystaa niman ku mashquulsan weeye masaalixda iyo danaha muslimiintana way ku mashquulsan yihiin markaasay u yimaadeen nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh waxay ku dhahdeen nebi allow waxaan rabnaa inaan ilaahay diintiisa u go'ne iyo aakharo u go'ne kulaylkan iyo shahwadan dhibkeeda si aan uga nasanno xiniyaha ma iska goynaaba nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa diiday maya buu nebigu yuri salawatu rabbi wasalamu calayh maya diintani ma aha diintii sidii suufiyadii nasaarada oo kale duurka la geli jiray ma ahee rabbi subxaana watacaala wuxuu idiin qoray raadiya oo wixii ilaahay idinku talagalayna shahwada ku guta buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalamu calayh amaa waa isdhufaanaynaa iyo xiniyaha isjaraynaa iyo maya raggii guursan mayna yidhi saddexda ahaa midkood uu yidhi anigu caawo o dhan baan soo jeedayaayo seexan maayo midna uu yidhi anigu maya hilibba cuni maayo weligay ninna uu yidhi anigu dumarba weligay guursan maayo nebigu wuxu yidhi sal alay wasalam anigu habeenkii qaarna waan seexan qaarna waan soo jeediyo waan cibaadaysan maalmaha qaarna waan soomi qaarna waan afurnaan hilibkana waan cuni dumarkana waan guursan sunnadaydaa ninkii ka leexdow iga mid ma tihid buu nabi yuri salawatu rabbi waslamu calayh sunnadaydaa guursiga ninkii ka leexdow iga mid ma tihid buu rasulku yuri salawatu rabbi waslamu calayh limaada lianna guurku waa sunnatu lambiyaa rususha ilaahay subxana watacaala iyo nebiyada sunnadii iyo caadada laga soo gaadhay jidka laga soo gaadhay waa guurka rasuulku marka waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayh raggii damcay inay aakharo un isaga go'aan oo cibaado ilaahay u go'aan oo dhib iyo carruur iyo rafaad iyo adduunyadiiyo kadeedkeeda ka tagaan nebigu waa diiday salawatu rabbi wasalam alay guursada buu rasulku yuri salawatu rabbi waslamu calayh waxaad garan kartaa marka ahmiyadda ay diinta islaamku siisay qoyska iyo dhisidiisa waxaa ka mid ah nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh si khaasa wuxuu ula hadlay dhallinyarada oo dee dhallinyarada nebigu wuxuu ula hadlayaa mawduuca uu kala hadlaya baa wuxuu yahay mawduucay dhallinyaradu kaga firfircoon tahay odayaasha iyo dadka da-oobay wuxuu nebigu yuri sal lla alay waslam ya macshara ashabaab man istataaca minkum alba'ata falyatazawaj buu nebi yuri salawatu rabbi waslamu calayh dhallinyaradii ciddii kharashka guurka ka bixi kartaay ha guursata buu nebi yuri salawatu rabbi waslamu calayh ha la guursado bal nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa uu inagula dardaarmay in guurka la badiyo leanna nebigu sal alay wasalam wuxuu ku xisaabtamayaa sida uu inoo sheegay aakhare marka la tago oo rususha nin walba uu keensado dadkii raacsanaa waxaan doonayaa ummadaydu inay badato buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu calayh yacni waxa weya saas daraaddeed calaa hada alasaas qoysaska muslimku inuu bato bulshadu ay barakowdo qoyskii markuu dhismo carruur baa ka imaanaysa marti buu yeelanayaa mudanuu yeelanayaa
yani waxa way xidid buu yeelanayaa, qaraabuu yeelanayaa, waa si qaab ay bulshadu isu dhex gasho u xidhiidho weeye. qoyskii marka sinaba loogama maarmo, waa asaas lagama maarmaan ah. sidaas daraaddeed baa nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu aleyh xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi tazawajuu fainii mukaafirun bikum alumama ywma alqiyaama walaa takunuu karuhbaniyati nasara buu nabi yuri salawatu rabbi wasalamu aleyh. xadiiska imam albayhaqi baa soo saaray, sheikh alalbani aleyh raxmat ullahi wuxuu leey waa xasan. xadiisku wuxuu leeyahay ha noqonina buu nabi yuri sal alay wasalam sida nasaarada suufiyadoodii duurgalka ah oo kale ha noqonina. nasaarada iyo christianka waxay lahaan jireen maqan hadda inay leeyihin kaleete niman intay adduunyada iskaga dhex baxaan oo meelaha baadiyaha iyo hawdka iyo intay ka dhistaan meelay ku cibaadaystaan halkaa dadka kaga go'a oo meeshaa ku cibaadaystay lahaan jireen, oo naag aqoonin, guur aqoonin, carruur aqoonin, shaqo iyo ganacsi aqoonin. kuwaasoo kale ha noqonina buu nabi yuri salawatu rabbi wasalamu caleyh. diintan ma aha sidii ruhbaaniyadii nasaaradoo kale, waa xaniifiyatu samxa. waxau rabbi ku kulmiyey adduunyadii iyo aakhiradiiba waa idinku kulmiyey. saaca wa saaca, saacadna diintaada, aakhiradaada, mustaqbalkaaga, saacadna xuquuqdaadii adduunyada iyo biilkaagiisaas. xandalat alasadi saxaabigii la odhan jira waa ka nabiga sal alay slam u yimi. xandala alasadi saxiix muslimka ku yaalla xadiis. abubakr sidiiq buu yimi, markaasaa wuxuu yihi abubakarow ninkii la odhan jiray xandala waa munaafaqoobay, isagaa isku wada. markaasuu wuxuu yihi war maxaa tahay waxa sheegaysa? war waan munaafaqoobay buu yidhi. war seed leedahay oo seed ku munaafaqoobay? wuxuu yidhi nebiga markaan la fadhino oo ilaahayna xusuusinayo oo janno iyo uu nooga warramayo, naar nooga warramayo, waxaad moodaa buu yidhi qalbiganaga siduu u saamoobayo sidii annagoo jannadii iyo naartii arkaynoo kaleeto. markaanu ka tagnana oo carruurtii iyo xoolihii iyo hantidii markaan dhex gallana wixii qalbiganaga ku jiro dhan waa halmaamayna. isbeddel baa qalbiganaga ku dhacay. saas daraaddeed munaafiq baan ahay. munaafiq baa isbedel lagu yaqaanaayo. abubakr sidiiq buu u sheegay, markaasuu yihi abubakar war aniga laftayda dhibkaa waa ay haystaay, bal ina keen. aniga laftaydaaba kula qabee, bal ina keen. waa israaceen, rasuulkay wada tageen salawatu rabbi wasalaamu caleyh. xandala hadla wuxuu yihi nebi maxamedow xandale waa munaafaqoobay. maxaa dhacay buu nebigu sal alay slam. wuxuu yihi nebiow tanaadna haysato, markaan kula joogno od nawaaninayso janno iyo naar inaan aragnaad moodaa. haddaan kaa tagno oo xoolihii iyo carruurtii iyo dhex gallana isbeddel baa nagu dhacay. nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, ilaahay baan ku dhaartay haddaad ahaan lahaydeen oo daa'imi lahaydeen markaad ila joogtaan sidaad tihiin, haddaad daa'imi lahaydeen malaa'igtaa jidadka idinku salaami lahayd buu nebigu salawatu rabbi wasalaamu calayh. walaakin saacatan wa saacatan yaa xandala buu nebigu yuri salawatu rabbi wasalamu calayh. saacad iyo saacad buu nebigu yuri salawatu rabbi wasalamu calayh. maxaa laga wadaa? saacad adduunyadaada, saacadna aakhirada. bini aadam baa tahay, shahwaa lagu saaray, waajibaad baa lagu saaray, carruur baa kugu tacalluqda, xaas baa kugu tacalluqa, naftaadii iyo doonideedii baa kugu tacalluqda. saas daraaddeed saacad adduunyadaada, saacadna aakhiradaadii ha halmaami. waminhum man yaqulu rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaab annar. waxaa ka mida dadka qaar odhanaya ilaahu adduunkana wanaagna sii, aakharana wanaagna sii, cadaabkana ilaahu naga ilaali. waxaa ka horreeya guruub kale oo famin annaasi man yaqulu rabbana aatina fi dunya wama lahum fi laakhirati min khalaq. yani qolo waxaa jirta iyagoo odhanaya ilaahu adduunka waxna sii, ilaahu xoola isii, ducadiisa waa intaas. ilaahu xoola isii, haye. ilaahu carruur isii, haye. ilaahu xaas iigu dar, haye. ilaahu guri iigu dar, haye. ilaahu gaari iigu dar, haye. ilaahu aakhara wax isiiba kumaba jirta. qaamuuskiisa iyo jadwalkiisa haddaad baadhaba qodob aakhara xusahaya kumaba jiraba. qoladaa ilahay waa caayay subxana watacala, waa dhaleecaysan yihin kuwa. laakiin kuwa ilaahay ammaanay waxa weeye waa kuwa adduunyadoodii iyo aakharadoodiiba isku watow. aakharadoodiina gacanta midigtaa bay ugu jirtaa, adduunkoodiina gacanta bidix bay ku haystaan. oo ma allah baa diiday subxana watacala, ilahay baaba inagu qalqaalinaya. diin markastaa wax isugu dheelitirtay weeye, ma aha diintii nasaarada ee lahayd duurka gala, ganacsiga ka taga, magaalooyinka ka taga,
teknolojiyada ha ka faa'iidaysanina yani horumarka dhaafa xadaarada ka taga duurka gala oo ruubaaniyooba suufiye noqda diintii odhanaysa maaha diinta islaamka saas ma ee waxay leedahay wax isku wada xaggana ha u badanina dhinac haddaad u badanaysaan dhanka aakhara uga ilan ayadaa raasamaal oo rasmiya sooma tani waa dhalanteed barrinta laga dhaqaaqaye haddaad dhinac u badanaysaan dhanka aakhara u bataa laakiin dhankaas iyo maya isku wada wixii saasaa la doonaya macnaha walaalayaal marka yani rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saasuuna leeyahay masaladaasi marka waxaan ula jeedaa qoyska dhismihiisu waa mabda ka mida mabaadi'da asaasiga ee diintii nebi maxamed la yimi salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macnaha ayib aanu nimaadna marka maxaa haysta mashaakisha qoysaska haysta maxay khaasatan qoysaskan yurub iyo maraykanka iyo noloshan reer galbeedka dhex yimid mashaakisha haystaay say u yaallaan mashaakisha haysta waxaa ka mida qoysaska oo kuwa ugu halisan ah qoysasku waxay qarka u saaran yihiin ama dhacdayba taqriiban in badan ku dhacday in badanna ay qarka u saaran yihiin inay ku dhex milmaan mujtamacaadkii ay u yimaadeen maxaa yeelay mujtamacu saamayn buu leeyahy ta'tiir buu leeyahy si aadan adiga dareemaynin markaa ayuu wuxuu kuu siinayaa dhaqankiisa taqaaliiddiisa waxyaalaha uu rumaysan yahay akhlaaqdiisa adigu laakiin waxaa laga yaabaa inaad filayso weerar muuqda in lagugu soo qaado gurigaaga weerar lagu soo qaadiyo xaaskaaga oo marada laga dhigo oo ilmahaagii weerar lagu soo qaado oo adoo arkahayo ay kuu muuqato la kaxaysto yacni saamaynta bulshooyinku ay sameeyaan oo ruuxa ku sameeyaan saas ma aha waad iskaga dhex noolaanaysaa saamayn badan ma dareemaysid qalbigaagaa marka hore wax iska beddelayaan isbeddelka qalbigaa soconaya wuu soconayaa marka dambena saamayntu waxay usoo gudbaysaa noloshii qaybaheedii kala gadisneed ee qoyskay soo gudbaysaa mushkilada ugu weynayna haysa taas bulshadu inay saamayn leedahay waxaad ku garan kartaa nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nin baa usoo dacwooday saxaabadiisa ka mid wuxuu ku yidhi rasuul allow nin aan deris nahay ayaa idhiba si kasta intaan yeelay buu ninkaasi dhibkii iga dayn waaya nebigu wuxuu ku yidhi sal alay slam waxaad samaysaa alaabta guriga ku jirta intaad soo saarto waddada kusoo daadi buu nebigu yuri sal alay slam alaabtii buu soo saaray gurigii ka soo saaray waddadii buu ku daadiyey markaasuu is-ag taagay alaabtii oo waddada daata dadkii jidkay hayaan waa la soo marayaa marka ninkii soo maraba wuxuu leeyahay war maxaa kugu dhacay maxaa guriga kaa soo saaray nin derisoo xun baan leeyahayoo meeshan oo idhimayoo gurigii aan la joogi waayo habaar allaha kugu rido inkaari kugu dhacda war ninka laga nabadgeli waayo muxuu ah waa qoladaas waa dhacda kuwo kalaa soo maraya war maxaa kugu dhacay ninaan deris nahay baa idhimayoo guriga iga soo saaray balaaye allaha ku rido qolo walboo martaba warka u sheegaba yani waxay ku turtaa habaar bay ku turtaa ninkii markuu arkay waxa ku socda ayuu intuu yii warniyo raalli ahow dib dambana kuu dhibi maayo ballan baan kaa qaadayaa adigoo raalli ah alaabtii soo ceshoo guriga kusoo noqo isagaa alaabtii la daldalay oo guriga ku celi dib dambe ninkii dhib dambe oo u qabsaday ma jiro bal u fiirsa rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qaabku wax u daaweynayay bulshada cadaadiskeeda iyo bulshada ta'siirkeeda iyo saamaynteedu wax u dulqaadan kara ma jiro uma adkaysan karto maxaa yeele adiga bini aadam haddaad tahay waxaa la yidhahdaa al-insaanu kaa'inun ijtimaaciy baa la yidhahdaa waa makhluuq isaga oo dhan inuu bulsho ahaado bulsho ku dhex jiro ay laazim ku tahay keligaa ma noolaan karto haddii wax walba inta guriga lagu dhigo hoolkan haddaan dhex fadhido inta cuntadii lagugu diyaariyo
cabitaankii lagugu diyaariyo wax walba ood rabta halkaa lagu dhigo lagu yidhaahdo keligaa ku noolow dadkana lagaa kaxeeyo cadaabka ugu badan unbaad mudani dhibka ugu badan unbaad mudani sababtu maxay tahay waxaad u baahan tahay waxaad la noolaato waxaad la sheekaysato waxaad wada joogtaan waxaad haasawdaan wax kula mid ah ood weheshato baad u baahan tahay waa nolosheenna qaybaha asaasigaa bay ka mid waxaad ku garan kartaan rabbi subxaana wa tacaala qur'aanka ayadda fi suurati tawba ku jirta 3 ninoo waxaa jirtay saxaabada ka mid a oo dagaalkii nebigu markuu u baxay Tabuuk ka hadhay munaafiqiin badan baa ka hadhay laakiin 3daasi waxay ahayn 3 ninoo fiican laakiin waxoogaa adduunya reeba markuu nebigu dagaalkii ka soo noqday ayay nebiga u yimaadeen sallallahu alayhi wasallam markaasay u cudur daarteen yani waxay u sheegeen sababtii reebtay inay u hadheen gardarro inay u hadheen iyo garla'aan wax sababoo reebay iyagoon jirin inay iska hadheen nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yidhi kac iska taga ilaahay baa arrinkiina xukumi doonee waa tageen amar baa la soo rogoo nabigu wareegtu soo saaray uu leeyahay nimankaa lalama hadli karo wax la hadli kara ma jiro nimankii dadkii baa ka wada aamusay bulshadii waa dhex joogaan wasaajidkii waa imaanayaan meelihii la isugu imaanayo waa joogaan laakiin assalaamu calaykum hadday dhahaan wa calaykum assalaam wax dhahaya ma jiro salaan xataa laga qaadi maayo 40 beri markay ugu dhammaatay yaa haddana xaaladii lasii adkeeyo waxaa la yidhi naagihiinana ka fogaada markii hore dumarkii bayba la joogeene xaasaskiinana waxaa la yidhi ka taga rabbi subxaana wa tacaala nimanka xaaladda qabsatay markuu cabirayay iyo dareenkoodu meeshuu gaadhay iyo sida ay cidhiidhiga u galeen wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala wacala alhalaaثati aladiina khullifuu xata ida daaqat calayhim alardu bima raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadannuu an laa malja'a min allahi ila ilayh dhulkii baa ku cidhiidhyamay oo naftoodii baa ku cidhiidhyantay dhulkii waa waasac laakiin adiga dhulkani wuxuu waasac kuugu yahay bulshadaad ku dhex noosha sheekada lagugula sheekaysanayo naftaadu waxay waasac tahay faraxsan tahay markaad dadka dhex joogto oo lagula sheekaysanayo ood weheshanayso ood wada joogtaan oo haasaawaysaan laakiin bulshadaasi maanta hadday kaa aamusto dhulkani wuxuu kula noqonay dhulkaa taqaanayba ma aha bulshadu bulshadaa taqaanay ma aha bini aadam baynu nahay marka ma kala maaranno oo bulsho kama maarno bini aadamku waa kaa'in ijtimaaciyo bulshuu ku dhex koray bulshana kama maarno ha ahaatee bulshada aad ku dhex nooshahay adiguna waxbaad ku biirisaa iyaduna waxbay kugu biirisaa saamayn baad ku leedahay iyaduna saamayn bay kugu leedahay waxbay kaa bedeshaa adiguna waxbaad ka bedeli kartaa ayib laakiin kolba haddii lagaa badan yahayna adaa lagu bedeli haddaad badan tahayna adaa wax bedelay haddii lagaa badan yahay hata soomaalidu tidhaahdo dad kaa badan iyo biyo kaa badanba way ku hafiyaan midna iskama cabi weerarka afkaarta iyo akhlaaqda kaaga imaanaya bulshada aad ku dhex nooshahay inta aad iska caabin karto si kasta haddaad u dalaasho waa muddo kooban wey waxay la mid tahay sidii maalan adigoo biyo socdo aad u socda togaga oo kaleeto biyahoodu markay rogmanayaan oo aad u socdaan adigoo ka hor yimid oo kaleeto oo ka hor dabaalanay oo biyihii ka hor tegey tayaarka biyaha qaabkuu u socdo inaad u raacdo mooyaane haddaad ka hor tagto ood tidhaahdo xoog ku mar muddo gaaban baad dabaalan kartaa wixii ka dambeeya waad raaci qasab si kasta haddaad dabaal u taqaano ood aqoon kasta u leedahay muddo gaaban baad biyo kaa hor yimid aad iska celin kartaa waa daali marka dambe waa inaad dhiibto oad ku qasbanta waxaan kaaga socda bulshada kaaga socda aad ku dhex nooshahay inta aad iscaabin karto ood iscelcelin karto waa muddo gaaban oo aada u gaaban waxaad ku garan kartaa bulshooyinkii muslimka ahaa ee soo degay waddamadan reer galbeedka ee innaga soomaalida qaxeenna ka horreeyey markaad u timaadeen ayaga iyo bulshaday u yimaadeen u malayn maayo farqi weyn inuu udhexeeyo u malayn maayo farqi weyn oo la taaban karayo nolosha qoyskooda iyo carruurtooda iyo iyaga iyo wax weyn uma dhexeeyo innaga soomaalida ah
muddadii aad timaadeen hadda dhowr iyo 10 sano taqriiban baa la joogaa waddamada sanadihii horeed imaanayseen qaabkaad wax u arkayseen iyo aragtidiinna iyo qaab nololeedka qoysaska iyo fikirkiinu qaabku ahaa iyo xataa akhlaaqdu qaabkay ahayd iyo maanta siday tahay farqi weyn baa udhexeeya bal ruux walowba adigu miisaan gooniyaysa saar maanta iyo shalay isku mid maydaan ahayn wahaakadaa waktigu waa ku wadayaa adiguna waad sii dabcaysaa waad sii soconaysaa naf yar baa marka dambe kugu soo hadhi bal carruurtaada u kaadi kuwii ku dhashay u kaadi dadka macnaha waxa weeye da'yartaa u kaadi odayaasha waaweyn ee iyagoo waaweynoo waxoogaa maskaxdoodu samaysantay diin ahaan u samaysmay akhlaaqdoodu samaysantay bulsho islaam kusoo dhex koray kuwa unbaa laga yaabaa hadday wax ka hadhi karaan inay wax ka hadhaan un hadday hadhi karaan oo baaqi noqonaya kuwan baa hadha saas way macana ama generationka ku xiga isaga waxa weye rajo badan lagama qabo sababtu maxay tahay waxaa laga yaabaa duulaan toosa inta lasoo weeraray inaan lagu odhanin gaalow oo kaniisada gal oo diinta islaamka nac oo akhlaaqdii aad xagga kala timid waa waxun inaan lagu dhihin baa laga yaaba laakiin maxaa heerkaa ku gaadhsiiyey waxaa heerkaa ku gaadhsiiyey maalin walba waad dhaqmaysaa rinjiga si kasta rinjigaagu ha u adkaado geed aday kasta haddaad tahay dhaqitaanka maalin walba kugu socdon baa kaa tambadina marka dambe saas marka taa way midda laynooga digayo ta'asurka iyo saamaynta bulshadu ay keenayso wax layska celin karo layska caabin karo maaha waana midda keentay shareecadii nebi maxamed ilaahay ku soo dejiyey subxaana wa tacaala iyo diinta islaamku inay ina tidhaahdo war bulsho aan idinla fikrad ahayn oon idinla diin ahayn iskama caabin kartaane ka dhex taga haddii xal uun diintu heli karto in laysku dhex noolaan kara ah xalka waa la keeni lahaa laynama yidhaahdeen taga guura laynama dheheen hijrooda laynama dheheen carara laynama dheheen waxaa layna dhihi lahaa meye idinkuba waxbaad gudbin kartaane weerara oo macnaha waxa weye afkaartiina gudbiya laakiin rabbi subxaana wa tacaala waxaan inoo muuqanin baa u muuqda rasuulkiisa waxaa u muuqda waxaan maanta inoo muuqanin shareecadu waxay wax ka fiirinaysaa meel aynaan anagu waxba ka fahmi karin waa midda loo leeyahay marka meesha ka carara oo bulsho aan kula fikradana ku dhex noolaan oo reerkaaga aan ku dhex noolaynin wax kale laguma leh waxaa lagu leeyahay marka ugu dambaysa iyadan baa ka adkaan doonta marka wax lala lex jeclaabo wax lala lex jeclaabo oo ruuxu uu macnaha waxa weeye uu u naxo diinta ugu qali haddii maanta lagu yidhaahdo intaas shilima haysatoo dhanna waa lagaa qaadan carruurtaadoo dhanna waa lagaa qaadan xaaskana waa lagaala wareegi soomaydan qaxdeen ya wadaad intuu idinka yimaado africa iyo carab warqaxa oo hijrooda in yidhahda miyaad u baahanta ya haddii xoolahana laydinka qaadanay carruurtana laydinka qaadanay si halhaleel oon xataa isweydiin lahayn baad uqixi lahayd sooma xataa laysma weydiiyan war xaggeen u qaxna xataa maydaan isweydiisan wax ka qaalisan baa laakiin laydinka qaadanayaayo maalinba qayb la goosanayo wax ka qaalisan carruur ka qaalisan xaasad ka qaalisan dhaqaale ka qaalisan muxuu yahay waa diin waa aakhiradaadii waa akhlaaqdaadii maalinba qayb baa la goosanayaa laakiin waxa weye iyada uqixi mayne xoolo laakiin waa uqixi lahay saas xoolo dartood waa uqaxayna laakiin diin la carara maya saas waan ugu adag sababtu maxaa tahay leanna waxa weeye shaygu kolba qiimaha agtaada uu ku leeyahay ayuu ama dhib kugu qasbaa ama kaa joojiya waxaa aad qiimo inala weyn waxyaabahan kale laakiin diintu wax weyn bay nala bahay hadday doonto ha tagto hadday doontona ha joogto saas way macana hadday doonto ha tagto hadday doontona waa joogto hadday doonto ha dhaawacanto hadday doonto ha qasanto yani waxa weeyaan almuhim waxa weeyaan muslim baan ahay ummaddii nebi maxamed baan ahay ummaddii nebi maxamed haddaan ahayna ummaddii maxamed jannaday wadageli waxaasa inaga dhadhac janno waa garanti meel bay iska taalla iyadu warkaasi war jira ma meesha laynaga soo galay halkaa rasuulkeena muxuu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh man khaafa adlaja waman adlaja balaga almanzil alaa ina silcat allahi haaliya alaa ina silcat allahi aljanna buu nabi yuhi salawatu rabbi wasalamu calayh war ninkii habeenkii cabsanaya
oo jidka ka baqayaay habeenkii buu socotayay oo guuraa ma qaano waxa ka timaadeen wadankii waa lugayn jirteen ruuxu markuu ka cabsanayo maalintii qorax iyo gaajo iyo oon iyo habeenkii baa la lugeeyay oo jidka la maraa ninkii cabsanaya habeen buu lugeeyaa habeenkii ninku lugeeyana meeshuu rabay buu gaadhaa war ilaahay badeecadiisu waa qaali badeecada ilaahayna waa jannada buu nabigu sallallahu alayhi wasallam wax raqiisa oo bilaash ku helaysaan ma aha wax raqiis oo bilaash lagu helayo jannada ilaahay waa ka weyntaa subxaanahu wa ta'ala walaalayaal marka bulshada aan ku dhex noolahay mashaakisha inaga haysata waxa ugu weyn milankaas aynaan is-ogeyn ee bulshada ku dhex milmayno rasuulkeenana sheegay sallallahu alayhi wasallam sida dadku ay bulshada iyo dadku isu saameynayaan oo afkaarta isu weydaarsanayaan wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ruuxa xun kala fadhiya ee la degan wuxuu la mid yahay sidii ruux la fadhiistay midka biraha garaaca oo kale baasha buufimada dabka lagu shido ee markuu dabka ka damaba ay ku huriyaan buufimadaas oo kale u haysta birna wuu garaacaya kaasoo kale la soo fadhiisatay ka markaad la soo fadhiisato laba mid ama dambaaburada iyo dhuxusha ilaan dabkii buu hurinaya dhuxusha dulduulaysa iyo dambaaburada dulduulaysa inay kugu dhacdo maryaha kaa gubto waa mid ama waxaan dabka ku jira iyo waxaan uu shishidahayo urkiisa iyo qarmuunkiisa inaad ku rafaado labadaa mid ka mida weeye haddaad la soo fadhiisato ruuxaas dabka shiday ruuxa xun iyo bulshada xun la deganaanshaheedu taasoo kale ka dhigaya haddii midkaasi uu maryaha iyo calalada iyo jidhka iyo dhimbilkaaga soo dushay ay ku gubayso bulshooyinkan aan dhex degannahay ayagu maryo kaa gubi maayaan laakiin diin bay gubayaan dhimbisha bulshada ka soo duulaysa markaba waxay ku dhacaysaa qalbigaagay gubaysaa iimaankii bay gubaysaa akhlaaqdii bay gubaysaa yacni waxa weeye wanaaggii bay gubaysaa qiyamkii iyo wixii sharaf lahaa ee xishmad lahaa oo dhan bay gubaysaa marada hadday kaa idinka gubaan maro meel kaloo maad ka heli lahaydeen maro la-aan maydaan noqoteene laakiin wax qaaliya nebigu siduu ka wada salawatu rabbi wasalam aley xadiiska waxa weeye shayga qaaligeed haysato ayuu gubaya ruuxa wanaagsan iyo bulshada wanaagsan la noolaanshaheedu wuxuu la mid yahay oo kaleeto nin cadar haysta ninka barfuunka ama cadarka iibiyo adoo u yimid oo kale la soo fadhiista ama waxa weeyaan fadhiisigaad timid imaanshaha aad timid ee la soo fadhiisatayba baad udayga helaysaa udgoonka ama meehe wuuba kaa iibinoo waad intifaacsan ama meehe wuu iska kaasiin oo bilaash buuba kugu siin ruuxa cadarka iibinaya faa'iida la-aan ka tegi mayd dhibna kaa soo gaari maayo bulshada wanaagsan ku dhex noolaanshaheeda iyo dadka wan wanaagsan la saaxiibidooda waa nooca dadka xunxun iyo bulshada xun ku dhex noolaanshaheeduna waa taa hore oo nabigu ku tusaaleeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninkaa dabka shiday annaga marka isma ogin iskamana war hayno laakiin waxaa gubanaya qoysaskii baa gubanaya sistamka iyo nidaamka qoysaska ilaahay ugu talagalay inay u noolaadaan waxaa bedelaya sistamka iyo nidaamka bulshadan aad dhex timaadeen qoysaskooda u nool yihiin mana kari kartaan mana caabin kartaan mana isjeclin kartaan nabigeenu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh alrajulu calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil buu nabi sal alay slam war ninku ruuxa uu saaxiibka la yahay buu ku diin yahay oo la diin noqonayahay ciddaad la saaxiibaysaan ka fiirsada buu nabi yuri salawatu rabbi waslamu calayh adoo quman oo diin leh oo khayr badan haddaad ciyaal suuq saaxiib la noqoto maalinta dambe ciyaal suuq baad noqoni adoo akhyaar ah haddaad kuwa ashraara la saaxiibto maalinta dambe ashraar unbaad noqoni adoo qiimo leh haddaad kuwa aan qiimo lahayn la saaxiibto maalinta dambe qiimo darro baad kusoo dhici limaada inaynan waxba kuu sheegin baa laga yaabaa laakiin dhaqankoodaa ku saamaynaya marka saamaynta bulshooyinku ay isku samaynayaan ama adiga kugu yeelanayaan waa masale iska cad nabigeenu wuxu uri sal lla alay waslam laa tusaaxib ilaa mu'minan ruuxaan mu'minayn ha la saaxiibin hana la degin dariskaaga shaaricaaga dawladdaad ka hoos nooshahay bulshada aad yani kugu wareegsan kulligood waa waxa saamaynaya noloshaada saamaynaya mushkilada horta ina haysatahay kow oo qoysaskana haysatahay waa mawjadaas
iyo dabaylaha xooga badan ee haya weerarkana ku ah wixii dhaqan iyo diin u ahaa. kow mushkilada koobaad taas. mushkilada labaad waxa weeyaan izdiwaajiyatu talaqi wa tarbiya almutacaadida. haddii bini aadamka ilaahay subxaana wa tacaala siduu qur-aanku ku sheegay ma jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfihi, allah subxaana wa tacaala ruuxa bini aadamkaa laba qalbi uma samaynin, waa hal qalbi buu leeyahy. xubinka qalbiga la yidhaahda ee bini aadamka wax qaadaayo waa hal meel, waa hal mid. ruux laba qalbi leh ama laba wadna leh ilaahay ma abuurin subxana wa tacaala. maadaama ay saas tahay, wadnaha iyo qalbigu mid hadduu yahay hal mabda' buu aqbali karaa, hal mabda' buu aqbali karaa. laba mabda' wadnaha isuguma tegi karaan. allah subxaana wa tacaala xubin uu abuuray oo aada cagsha badan wey oo jidhka meesha xarunta laga maamula. xubinkaa yarka ahee jidhka xaruntiisa ah laba mabda' ma wada qaadan karo. kufri iyo iimaan ma wada geli karaan. dhaqan islaamka ka soo jeeda iyo dhaqan gaalo ka soo jeedana ma wada geli karaan. qoyskii muslimka ahaa dhaqan gaalo ka soo jeeda iyo dhaqan diinta islaamka ka soo jeeda isuguma tegi karaan. laba shay oo iska soo horjeedo oo dab iyo biyo isku ah meel kuma kulmi karaan. mashaakiisha marka haysata waxaa ka mid a qoysaskii waddamadan reer galbeedka yimid, waxaa ka mid a dhaqankii xagga ay kala yimaadeen oo islaam ahaa, dhaqankii halkan ay ugu yimaadeen oo gaal ah. labadaasaa kala jiidanaya marka, labadaasaa kala jiidanaya. laba dhaqan ruuxay kala jiidanayaani akhiiran marka dambe wareer unbuu kusoo bixi, wareer unbuu kusoo bixi. rabbi qur-aanku ku tilmaamay subxana wa tacala masaladaas dhowr aayadood baa lagu tilmaamay. shareecada islaamku waa diiday haba yaraatee ruuxa muslimkaa, qoyska muslimkaa, dawladda muslimka ah halkaa nidaam ee ilaahay soo dejiyey waxaan ahayn inay mid kale ku badxaan waa diiday rabbi subxana wa tacala. wa ana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili. jidkaygii toosnaa wakaa buu rabbi yihi subxana wa tacala. jidadkaa yaryarkaa ee ka leexanaya dhinacyaha maraya ha raacine isaga keligii mara. jidkaa toosan waa qur'aanka iyo sunnada nabigeena sal alay waslam. waa isaga midka la doonayo nolosheenno dhan inaynu noqoto. qoysaska in lagu saleeyo, maamulka qoysku ku salaysmo, qaab dhaqanka qoysku ku salaysmo, tarbiyada carruurta ku salaysmo, bulshada maamulkeeda iyo nidaamkeeda iyo xidhiirhkeedu ku salaysmo. rabbi subxaana wa tacala ka ugu talagalay taa. nidaam kale marka haddii uu nagu garab wadaayo bini aadamkii ma qaybsami karo, bini aadamkii ma qaybsami karo. bal rabbi subxaana wa tacala tusaalaha uu bixiye fiir. daraba allahu masalan rajulan fiihi shurakaau mutashaakisuun warajulan salaman lirajulin hal yastawiyaani masalan bu alla yihi subxana wa tacala. alla wuxuu tusaale samaynayaa nin ay wada leeyihiin, koox buu ka dhexeeya, dad badan buu ka dhexeeya. waa addoon sayidiye badan baa isku leh. sayidyada isku leh ee uu ka dhaxeeyana ayagaadan isku kalsoonayn oo dad iyaguba iskhilaafsan wey. 5 ilaa 6 nin ilaa 10 nin oo waxaa isku leh ayaga laftooduba isdiidan. addoon kale oo hal nin aleeyahay oo hal meel amarka ka qaatana waa ka isaguna. labadaasi ma siman yihiin baa la yidhi subxana wa tacala. labadaasi ma siman yihiin. hal meel ah inaad ka dambayso, hal ilaah leedahay, hal sharci a leedahay, hal nidaam leedahay, hal dhinaca u wada jeeda adiga reerkaagu waa midda bini aadam toosani kusoo bixi karo, qoys toosanoo hagaagsan kusoo bixi karo. laakiin qoys dhowr nidaam ay isku haystaan, xagga nidaamkii reer galbeedkaa ka jiidanaya, xagga nidaamkii islaamkaa ka jiidanaya, xagga nidaamkii soomaaliga iyo taqaaliiddii caadaadkii baa jiidanaya. qoys noocaas oo kaleeto oo 100 nidaam isku haystaan waa wareeraya, walaa shaka fi dalik. meel dhexaad buuna kusoo dhacaya. rabbi subxaana wa tacaala marka miduu inoo tilmaamaya taa wey. shakina kuma jiro taa ilaahay subxaana wa tacaala inoo tilmaamay iyo nidaamka uu qoyska ugu talagalay. haddii uu qoysku mari waayo oo nidaamyo kaleeto iyo dhaqamo kaleeto uu qaato in uu fasaadayo shaki kuma jiro.
walaw ittabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat الsamaawaatu wاlardu bu rabbi subxana watacala xaqu hadduu raaci lahaa say rabaan samaawaadkiiyo dhulalku way fasaadi lahayn bini aadamku say rabaan say noloshooda u rabaan say caqiidadooda u rabaan say cibaadadooda u rabaan dhaqanka ay doonayaan waxay iyagu dejisteen hadduu xaqu raaci lahaa samaduna ma dhisnaateen dhulkuna ma dhisnaadeen waa fasaadi lahayn qoyska boqolka nidaam ka amar qaadanayaay waa fasaadayaa waa wareerayaa ma hagaagsanaanayo ma deganaanayo xasilooni male qas ka bixi maayo carruur wanaagsanna ka soo bixi mayso maxaa yeelay boqol nidaam baa u taliya boqol nidaam buu ka amar qaataa markanuu ku socdaa marna kanuu ku socda markanuu khilaafaya markanuu khilaafaya haba yaraatee waxaan hal nidaam lahayn maba socon karayo samaawaadkan iyo dhulalkan aad arkaysaan rabbi wuxuu ihi subxaana watacaala law kana fiihima aalihatun ila allahu lafasadata samaawaadkan iyo dhulalkani hadday ilaahye kaloon alla ahayn ay lahaan lahaayeen way fasaadi lahaayeen bu rabbi subxana watacala waxay ku jiraan oo maalinkaynu aragnay ilaa maalinka maanta hal nidaam bay ku socdaan qoraxdii meel bay ka soo baxaysaa meeshii bay u dhacdaa dayixii waa soo baxayaa meeshiisiibuu u dhacaa yacni waxa weeye samadii waa dhisan tahay wax isbeddela kama muuqdo dayactir uma baahana dhulkii waa dhisan yahay bini aadamkii sidiisiibuu u tarmayaa nidaamkan wax ku socdaan macnaheedu waxay kutusaysaa hal ilaah baa ka dambeeya haddiise laakiin ilaahyo fara badan ay jiri lahaayeen oo meeshan yani wada maamulaay ma dhisnaadeen boqol nidaam bini aadamku kuma socon karo boqol nidaam ma wada maamuli karo laba nidaam kama dhaxayn karo mushkilada marka ina haysatahay waxay tahay qoysaskeenii aynu meeshan la nimid oo aynu ku soo kornay mujtamac iyo biica mucayana oo nidaam mucayana ku nool diin islaam dhaqankeeda oo dhinac iyadana ah oo diintii aynu sheeganaynay macnaha islaamnimadaan sheeganaynay tanaynu la nimid waxaa ina qabsaday marka mawjad aan sahlanayn oo bulsho samaysan cariiq ah xididaysatay nidaamkeedu uusan sahlanayn yacni wax alla waxay ku baahin lahayd oo barnaamijkeeda ku fidin lahayd oo imkaaniyaada haysata ayaynu marka kusoo dhexdhacnay nin marka waxa weeye yacni badweyn ku dhexdhacayo nin badweyn ku dhexdhacay biyo iskama dhawro iskama ilaalin kartid marka waxaa marka halisyada ina haysta ka mid ah oo khatarada ugu fara badan ina haysta ka mid a isdiwaajiyadaas qoysaskii muslimka ahaa nidaamkii islaamkana ay ka soo guureen kii gaaladana ayna la qabsanin oo dee mayna gaaloobin saas daraaddeed laba ragdhexaad bay ka laalaadaan qoysaskii marka dhibaatooyinka haysta ayay ka mid tahay dhibaatooyinka haysta waxaa ka mid a qoysaska waxa la yidhahdo runtii annagoo aad ugu jilicsan ama ugu dabacsan waxa la yidhahdo qasdulfikriga ama duulaanka maskaxda khaasatan haddaynu nahay bulshadii soomaaliyeed ee wakti dhow yimid saad ogsoon tihiin dad waxaynu nahay xadaarada iyo horumarka iyo teknolojiyada iyo waxyaalahan adduunyada ee bini aadamka maanta maskaxda lagaga qaadayo laynagu khayaamayo ee laynagu sirayahay dad aad ugu daciifiin oo ku liitaan meelo tuulooyina nolol iska bidaa'iya oo iska bilow ah meel baadiye ah dhulkaasaynu ka nid waxaynu ku soo dhexdhacnay marka nolol aynu inteena badanba u aragno inay tahay jannadii la raadinayo janno laabanba ma jirto maxaa lagu gaadhay baa soo baxaysa dooma guryahan quruxda badan wadooyinkan hagaagsan nidaamkan iyo kala dambayntan nabadgeliyadan waxan maxaa lagu gaadhay waxaa lagu gaadhay idinkuna dhaqan baad lahaydeen oo idin dib riday annaguna dhaqan baan leenaho na hormariyey horumarkiinuna wuxuu ku xidhan yahay dhaqankaanu haysanay inaad qaadataan ma rabtaan inaad horbaadaan ilbaxdaan nabadgelye heshaan teknolojiye heshaan horumar samaysaan qaata meeshaanu soo marnay soo mara intii tilaabo ee bulshooyinku reer galbeedku soo maraan la leeyahay marka tan soo qaata tan ku xejiya tan ku xejiya tan ku xejiya markaa kadib aad magaalooyinka quruxsan helaysaa iyo nolol qurux badan iyo nabadgelyo iyo nidaam iyo kala dambayn iyo teknolojiya markaasaad gaadhaysa markaasaa waxaa laynoo adeegsanaya wasaa'il runtii waxa weeye qaarkood khatarta ay leeyihiin wax la sawiri kara bay ahayd
telefishinkii baa lagu adeegsanayaa gurigii ku dhex yaalla, idaacaddii baa lagu adeegsanayaa, joornaalkii baa lagu adeegsanayaa, waxaa lagu adeegsanayaa shaaric iyo jidkii baa lagu adeegsanayaa, iskuulladii iyo goobihii waxbarashadaa lagu adeegsanayaa, jaamacaadkii baa lagu adeegsanayaa. muhimmaddu maxay tahay marka? muhimmaddu waxa weeyaan in lagaa dhaadhiciyo adiguna waa dambaysaa waana lagaa horreeyaa. waan dambeeyaa haddaad ictiraafto macnaheedu waxa weeye raadkayga soo raaca wey marka. war dhaqankaad haysan jirteen ma fiicnayn, qoysaskiinnu say u dhaqnaayeen ma fiicnayn, waxbarashadiinnii way liidatay, jinsigiinna waa liitaa, diintiinnu waa liidataa. maxaan samaynaa? taanada soo raaca. waa inta duulaanka marka maskaxda waa midka ka dhigay in badanoo innaga inaga mid ah in aynu raadinno sidii aynu u jiri lahayn reer galbeedkiiyo dhaqamadooda. dadkii da'yarta ahaa, dhallinyaradii, yacni dumarkii, qoysaskii, waaba la isgaadhsiin lahay. meel laga gaadho dhaqankoodii baa sidii yaa tartan loogu jiraa sidii loo qaadan laha. markaasaa waxaa la isku ammaanayaa ninba ninkii uu macnaha kaga horreeyo, ninba ninkuu kaga horreeyey iyo qoysba qoyskuu kaga horreeyay buu ka ammaanaya. labaan kala saari laanahay marka. labada inaga jira keen khaldan waxay tahay waxa la yidhaahdo horumarka adduunka iyo mas'alada dhaqamada iyo akhlaaqda iyo nidaamka nolosha way kala gedisan yihiin. horumarka iyo xadaaraadka iyo ilbaxnimada iyo tiknolojiyada iyo waxani waa wax ummadaha oo dhan ka dhexeeya wey. waa wax la wadaago wey. waa wax islaamkuna uu dawr iyo kaalin ku lahaa oo meel soo gaadhsiiyey. reer galbeedka iyo gaaladuna ay ka faa'iidaysteen oo markii dambe heer gaadhsiiyeen. berritana waa laga yaabaa inta laga qaato ummado kale inay sii kobciyaan oo meelayna gaadhsiinin inay gaadhsiiyaan. waa wax saasoo bulshooyinku isu dhidhiibaan, ninba maalin dawrkiisa iyo kaalintiisa uu qaadanayo. waxaan kadaata marka taasi waa noocaas. laakiin mas'alaa jirto oo ka qiimo badan birtan la hagaajiyey iyo nolosha bini aadamka la sahlay iyo facilitieskan faraha badan ee la bixiyey iyo wax ka qiimo badan baa jiroon inagu haysanno laakiin gaal ayna haysan. maxaan haysanaa? waxaan haysanaa alqiyam alakhlaaqiya, diin iyo akhlaaq iyo dhisnaan iyo nadaafad iyo wixii bini aadam qiimo ku yeelan lahaa baynu leenahay. sharaf buu ilahay ina siiyey subxana wa tacala. sharafta rabbigeen ina siiyey, qoysaskeenna siiyey, innaga ina siiyey, carruurteenna siiyey, aynu asal u lahayn oo macnaha waxa weeyaan aynu ku dhalannay. sharaftaasaa la doonayaa inaynu gadno, sharaftaasaa la doonayaa inaynu beecinno. inaad u aragtaa loo baahan yahay ninkan aad la soo degteed ee daristeen inaad adigu kaga qiimo badan tahay dhankii bini aadamnimada. waxoogaa birta hadduu kugu dhaafayna birta weligeedba waa la isku dhaafay ya oo bir la isku dhaafay dee innagaa seexanay sax, innagaa ka seexanay. laakiin bir baa lagugu dhaafay macnaheedu ma aha bini aadamnimadii iyo qiyamkii iyo akhlaaqdii iyo diin iyo wixii bini aadam ku ahaa baa lagugu dhaafay maaha. labadaa marka in la kala saaray u baahan tahay. innaga dhaqankii ilaahay inoo soo dejiyey qoysaskeenna ugu talagalay mid ka qiimo badan reer galbeed ma hayaan. bal idinkaa iiga xogogaalsane reer galbeed qoysas uma dhisna, carruurna uma samaysna. nin iyo naag isku kalsoon oo guri wada degan oo isku hagaagsan oona ma laha. sidaa ay u burbureen unbaan innaguna kusii soconnaayoo burburkaasaan innagana wax moodayna. mas'alada aan doonayna marka inay naga dhaadhacdo waxay tahay innagaa ka fiican dhismaha qoyska, nidaamka qoyska innagaa kaga fiican, dhismaha bulshada innagaa kaga fiican, diin baynu kaga fiicannahay, akhlaaq baan kaga fiicannahay. taa waa inaan dhahno na soo raaca. taa waa inaan dhahno na soo raaca waa inaan dhahno. annagaa idinkaga fiicane bini aadamnimadii waa ka baxdeen, xoolaad u baxdeen xoolo. inhum ilaa kal ancaami bal hum adallu sabiilan. dhankii xoolahaad u baxdeen bini aadamnimo hoos baad uga dhacdeen. markii akhlaaq la joogo iyo bini aadam wuxuu bini aadam ku ahaa waad ka baxdeeno kusoo noqdoo kaalay aan idin barne. laakiin haddii aad u baahan tihiin adduunyo iyo qaabkee baa maamul loo sameeyaa iyo qaabkee baa macnaha waxa weeyaan maaragtay yani waxa weeye culumta adduunyada oy ku horumareen oy ka midho keeneen aan ka faa'idaysano.
laakiin wixii qashinkoodii iyo akhlaaqdoodii iyo dhaqan xumadoodii iyo gurigooda qaabkay u maamulayeen taas yaan marnaba maskaxdeenna laga dhaadhicinin waan idinkaga fiicannahay yaynaana u arkin inay inagaga sitaan waana dhib ina haysta runtii adduunyada iyo qalbigeenna say u gashay baa wuxuu keenay haddii aadba dhankii adduunyada kor u fiirinaysaan ood marti u tihiin ood iyagu idin soo dejiyeen wixii kaleo dhanna inaad ku raacdaan khaasatan dadkii macnaha caqli gaabnaa dadkii aan horay diin u lahayn dadkii akhlaaqdu ku liidatay inay dabayshu ina qaadaayeen yaanu iskala reebna insha allahu tacaala waktigii ayaa dhammaaday muxaadarada qaybaheeda dambe biidn illahi tabaaraka watacaala waktiyada dambe ayaan ka dhigi doonaa hada billahi tawfiiq wasala allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam su-aaluhu maadaama shiikuna ka sheekeeyeynana aynu sognahay culayska qoysaskeena saaran waa lagu wareeray farabadnidooda iyo kala soocooda sidaa awgeed waxaa jiri doona insha allahu tacaala bal nadwo fiqiya oo ku saabsan insha allahu tacaala su-aalo kuwaasaa intii badneed loo dibdhigay intan xitaa hadda taale lagama gaadho sidaa awgeed qofkii su-aashii sii waaya ha ku talagalo insha allahu tacaala inay siinta iyo wixii loo gaadho nadwada fiqiga ay kusoo bixi doonto haddii abeedmo sheikh su-aasha koowaad waxay odhanaysaa maadaama saa tilmaantay oo aada iyo aada u badan yahay burburka qoysasku isla markaana ay biyo nasitaan maxaad nagula talinaysaa haddaanu nahay qoysaska soomaaliyeed ee degan dhulka kan galbeedka bismillahi raxmaan raxiim waxaan u malinayaa ila tali jawaabta ka horreysa waxay tahay taladii ma qaadanaysaan wax badan baa laydinla taliyay haddaad qaadanaysaan laakiin tala aan loo soo jeedin waxaan u malinayaa inaydaan nagu lagoynin intaad waddamadan reer galbeedka dhex degan tihiin wadaad kasta oo meeshan tala idinku siiyaay waa uu nin idinle badweyn baa ku dhex jirtaane biyaha iska ilaaliya adoo biyo ku dhex jira haddana biyihii miyaa iska ilaalin karta waa masale adag xalka haddii la yidhahda kama dambaysta waa xalka in badan lagu celceliyey in lagu celceliyana ay waajib tahay inaad garuusataan ood fahantaanna ay waajib tahay inaad fulisaanna ay ka sixayso maxay tahay waxa weeyaan in badweyn ku dhex jiraay biyo iskama dhowreen biyaha iyo badweynta intaad ka dhex baxdaan banaanka istaaga banaanka uga baxa markaasaad ingegaysaan oo qoyaanka aad iska ilaalin karta hadday noqoto bal sheekhu taasi waa adag tahay bal xal ka sokayraa raadi oo bal qiil noo raadi hadday tahay arrinta hadde waxa weeye qiilkii intaa ka sokeeye la heli karaayo waxa weeyaan uun mar uun biyo haddii la waayo maxaa la sameeya ya adoo dahaaro u baahan haddaad biyo weydo maxaa la sameeya waa la gebagabaystaa sooma wixii intaa ka sokeeye waa un gebagabaysi bodhaysi taqriiban marka ilaahay subxaana watacaala inoo kaalmeeyo waxaan dhihi lahaa ilaahay subxaana watacala walaalayaal intaad kaashataan ood allah tala saarataan ood iimaankii iyo kalsoonidii mu'miniinta lagu yaqaanay qaadataan sidii aad diintiina u badbaadin lahayd in ku dadaala haddaad meeshan joogtaan ood carruur iyo xaasad keenteen bal waxaa la yidhahdaa maa laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu waxaan la wada haleeli karin wixii laga qaban kara lagama tago intaad meesha joogto waxaad qaban karta qabo ama islaamic iskuol carruur la geeyo reerkii iyo yani waxa weeye islaamihii iyo qoysaskii hal xaafad soo wada dejisaan maraakiista islaamka iyo meelahaas khayrku ka socdood ka ag badataan idinka isla joogidiina oo badatay iyo isu heshigiina waxyaalahaas waa waxyaalo yaryaroo runtii la dhihi karo ilaa xaddi ma waa gebagabaysigaas iyo maarata moodhaysiga laakiin xalka rasmiga ee mar walba lagu soo celinayo waa tii rasuulkeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh qur-aankuna inoo jideeyey xal kaleeto ma lihin ooan ka ahayn inaan carruurta iyo reeraha ka rarno waddamada reer galbeedka hada bilahi
su-aasha kalena waxay odhanaysaa sheikh dunidan galbeedka waxaa aada u badan burburka qoyska waxaana keenaa qawaamadii ninka oo meesha ka baxda waxaana ka qayb qaata gabdhaha oo badanaa marka la isqabto gaalada u xukun taga ama booliska laga dacweeyo reerkii markaana laga dhex saaro marka muxuu noqonayaa uxukuntan in ay gabdhuhu aadaan ama u xukun tagaan booliiska oo markaa sidaa reerkii laga dhex saaro haddiise markaa carruurtaasi ay gaalowdo oo sidaa ay ku xumaato anigana layga dhex saaray ama layga qaaday miyaan dembi ku yeelanaya ilaa maalinkii ugu horreysay bulshooyinkan wadamada reer galbeedka yimid aan u imid ilaa maalinkaa maanta su-aashaasi wayn soo noqnoqonaysa ilaahay amarka ilmihii baa layga dhex saaray ee mas-uuliyad miyaan ku leeyahay iyo maxaad mas-uuliyad ugu yeelan weyda adaa keenay meesha ama lagaa dhex saaro ama yaan lagaa dhex saari ninka meesha keenay oo sababta u noqday adiga wey haddaad adigu sabab u tahay meelaad uga baxsanaysa ilaahu maa banaanka lagu tuurad sheegiye maa 100 goor banaanka lagu geeye meelaad kaga baxsanaysa xilka iyo mas-uuliyadda adigaa mas-uul ah الرجال قوامون على النساء يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته النبي صلى الله عليه وسلم marka meel laga baxsan mayso meel aad kaga fakanayso haday ilmaha si gaalooban ilaahay ma qadaro subhanahu wa ta'ala kama dhigo alle haday gaalooban ada mas'uulka haweentaas hadii diinteeda wax soo gaadho adaa keenay kuwa qaraabada aad tihiineed meeshan ku soo ururisay adaa keenay adaa sabab taa macnaheedu ma aha isaguna inuu bari yahay isagana waa mas-uul hadduu qaangaadhi laakiin shaki kuma laha inaad qayli wax ku leedahay dembigiisa iyo khaladka uu galay mas'alada qawaamada ragga iyo mas-uuliyadooda iyo xilka ka saaran iyo guriga hadduu khilaaf yimaado see loo xalliyaa waa duruusaha inoo soo socda insha allahu tacala muxaadarada qaybaheeda dambe wey xilligaa umaan ka hadli doonaa wabilahi tawfiiq akhwaan insha allahu tacaala su-aashan ayaan ugu dambaysiinaynaa haddii aad baydmo su-aashu waxay tahay saa-ilku wuxuu leeyahay waxaan isu qaban qaabiyey sheikh inaan guuro kabacdina gabadhii waa iga diiday waxayna tiri anigu kula guuri maayo ifur kabacdina waxaan ku ihi waan ku furayaa laakiin carruurtu waan kaxaysanayaa arrinkaas ayaana kaga xidhay furiinkeedii marka miyaan dulmiyey haddii aan ku xidhay furiinkeedii inay carruurta aan kaxaysto oo dhul muslim la aado carruurta waxa weeye shareecada islaamku siday qabto labada waalid kolba xagga diintooda midka ay maslaxadooda ku jirto ayaa la raacinaya haddii labada waalid ay noqoto in la wada joogi waayo ilmaha waxaa loo danaynayaa intaan adduunyadooda iyo biilkooda iyo noloshooda laga fikirin waxaa laga fikirayaa diintooda laga fikiraya iyadaa mudnaanta koobaad ninkaas oo su-aasha soo qoray waxaa dhihi lahaa horta marka koobaad ilaahay subxaana wa tacaala kaasho ilaahay ku qalmeeyo marka labaad runtii ma asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can katiir waxaan inagu kasbannay oon shaqaysanay abaalkeedii un weyey meelku kama imaanin wax shalayto aadan ka fiirsanin un midhaheedii wey ilaahay u soo wadkeen subxaana wa tacaala oo allah usoo noqo adee khaladka galay khaladkii aad gashay ciqaabtiisii umaa maanta ku haysa masalada labaad waxaan ku dhihi lahaa reerka sidaad shalay u wada keentay maantana inaad u wada celin karto ku dadaal farsamo aad isticmaashaba iyo si aad yeeshaba ilaahay kaalmadiisana cusko
ilahay baa wax fududeeya subxaana wa tacaala gabadha inuu ilaahay qalbigeeda soo jeediyo arrinta ku qanciyo geed gaaban iyo geed dheer u fuul asbaabteedii la imow kuguma talinayo in aad reerkii carruurtii ka kala tagto laantii ka tagto adiga keligaa cararto hadda adiga keligaa cararkaagu muxuu macno leeyahy adiga keligaa cararkaagu wax macno uu samaynayo ma jiro carruurtii aad keentay iyo reerkaad keentay sidii aad ku badbaadin lahayd inaad ku dadaashay u baahanta marka allah intaad kaashato subxaana wa tacaala farsamo iyo qaabkii aad isticmaali lahayd kollay nin walba iyo tabtiisa iyo kolba sidii ilahay u waafajiyay ku xidhan tahay arrintuna waxayna ka fursanaynin oo kollay aynan ka fursanaynin in aad sidii wax aad u sulsuulin lahayd oo wax u maaragtay u farsamayn lahayd oo aad ku dadaasho laakiin marnaba kuma dhahayo reerkii ka dhaqan gabadha furitaankeeda haddaad ilmaha isii ku xidho hadday su-aashu waxay tahay kuma siinaya hadday ku tidhaahdo meeshana kaaga xoog badanta nidaamkiina ayada garab siinayo hadda waxa weeyaan waan kufuri unbaad la taagnaan xaaladii waad sii dhabtiseen waad sii xumay xama sii hagaagin asal ahaan ninku inuu yidhaahdo gabadha xaggeeda hadday diidmadu ka socoto inuu yidhaahdo isfuro oo masaladii khuluca lagu saleeyo waa heli kara ilmaha diintooda hadday tahay waa la heli karaa laakiin waaqica norway ka jira ama waddamada reer galbeedka ka jiraaye waa waaqic si gooniya in wax loo cilaajiyo u baahan si gooniya in wax loo daaweeyo u baahan waaqic yani ma aha yani waxa weeyaan sidii inagoo xagga joognoo kaleeto loola dhaqmi kara ma aha warka murtidiisa waxa weeyaan nin tuur leh sabuu u seexday isaga yaqaanay soomaalida xaaladda khaaska bal waxaan ku dhihi lahaa culimada kula joogtana aada ula tasho adiguna ha ku degdegina xaaladda si fiican u daraasee ilaahayna la kaasho subxana wa tacala allana waxaan baryaynaa inuu gabadha qalbigeeda usoo jeediyo wixii khayra adiga iyo iyada iyo ilmahaba samaan ilahi idin waafajiya subxana wa tacala wabillahi tawfiiq